السلام عليكم kusoo dhawaada cashirkeenii toddobaad ee koorsadeena e-commerce Alibaba ganacsiga online ka ah anagoo isticmaaleyno alaabka keeneyno Alibaba. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sidee xayeysiinta Facebook loo sameeyaa oo ganacsigeena online ka ah sidee ugu sameynaynaa xayeysiin Facebook. Okay. Dadka waxaan u kala qaadaynaa labo waxaa jirta koorso gooni ah oo kooban 47 cashir taasoo aan ku diyaarinay ama aan ugu talagalnay dadka raba xirfadda social media marketing inay bartaan. Koorsadaas qofka ku barayso inuu noqon karo qofka xayeysiin Facebook oo professional ah oo diyaarin karo. Okay, marka cashirkan macquul ma ahan sida aad dareemaysid 47 cashir waxa oo cashir ama cilmi ah inaan ku soo koobno hal cashir, laakiin qof ganacsado online ah sidoo u sameyn kara xayeysiin Facebook ayaan ku baranaynaa muuqaalkan. Okay, laba qaab ayaan u kala qaadaynaa marka kaliya mobile heeso iyo qof mobile iyo computer isku heli karo. Okay, haddii computer aad heli kartid xirfadda social media uu ku bilaaban yahay waxaa sameyn kartaa xayeysiin business manager-ka ayaa kasoo saari kartaa. Okay, haddii mobile kaliya aad haysatid rabtidna businesskaaga inaad hormarisatid qasab maahan in aad ads manager aad ka samaysid, waxaa kugu filan post oo ah xayeysiin fudud u diyaariyey maaragta Facebook dadka aan aqoonta badan u lahaynin social media. Okay, marka labadaanba waa isla sameynaynaa. Kan waa wuxuu u baahan yahay maaragta cilmi badan, kanna ma u baahna cilmi sii badan uma baahna. Okay, marka aad Facebook-gaaga joogto mobile ha noqdo ama laptop-ka hadda laptop-ka ka sameynaynaa waxaa ugu horeyn laga rabaa inaad WhatsApp ku xirtid. WhatsApp marka ku xirina hadda markii aan joogno setting-ka WhatsApp inuu ku xiran yahay iska soo hubinaysaa. Hadda halkan ku qorno linked waxaan ka arkaynaa linked account qaybta WhatsApp marka tagno WhatsApp ayaa ku xiran. Okay, WhatsApp kala ku xiri kartaa hal WhatsApp ka badan waa lagu xiri karaa. Haddii aan ka soo laabano marka WhatsApp uu kugu xiran yahay waxaa soo gelinaysaa muuqaal ayaa soo gelinaysaa muuqaalkaasna hoostiisa bottom ayaa gelinaysaa. Tusaale hadda meesha maxaa ku jiro muuqaal waaye muuqaal aan ku sharxeyno koorsadeena maaragta social media marketing oo aan soo gelinay barteena Facebook. Okay, muuqaal ayaa soo gelinaysaa ama sawir Facebook page aan diyaarinay. Kadibna waxaa ku xiraysaa ama bottom waxaa ku daraysaa WhatsApp. Hadda kuwa qaar WhatsApp ma sida halka ujeedid hadda WhatsApp uu leeyahay. Okay, marka bottom WhatsApp marka ku xirtid hoostiisa mobile-kaaga waxaa kaaga muuqdo post waa meesha aan ka saareyno xayeysiinta, laakiin waa goorma waa mid fudud. Waxaa ku dhahay waxaa jirta mid kaleeto oo more professional ah badan maaragta cilmi badan oo loo yaqaan ads manager. Haddii cilmi badan aad ugu baahan tahay waxaan diyaarinay koorso 47 cashir ka kooban oo aan ku baranayno social media marketing. cilmiga social media Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, Pinterest sida loo sameeyo adiska ama xayeysiinta. Marka haddii aad u baahan tahay koorsadaasna waad iibsan kartaa insha Allah. Marka aan ku dhufano boost post mobile-kaaga waa same waxa halkaan iga soo bixi doono adigana waxaasoo kala kaaga soo bixi doono. Okay, hadda marka maxaa la hawsha halkaan ay ka bilaabanaysaa. qaybtan hadda adiga mobile-kaaga marka aad joogto sidan ay qaybtana kuu soo bilaabanayo kan hoos ayuu kuu marayaa. Meesha koowaad oo muhiimka inaad bedeshid waa goolka hadafka aad ka leedahay xayeysiintaada. Hadafka xayeysiinta ayaa waxaa ka dhigaysaa get more message badan ayaa rabnaa. Save ayaa dhahaynaa message-kaasoo ah WhatsApp in la soo xiriiro. waa soo soconaysaa waxaa imaanaynaa meeshaan WhatsApp kaliya ayaan ka dooranaynaa. Okay, hadduu cilad ku qabsado gaduud ku soo fuulo asigana wuxuu u baahan yahay laba option ay haysataa. haddii number Soomaali uu yahay maybe conversion-ka numberada Soomaali ma aqbalaan inaad numberka bedeshid, ama haddii kaloo numberkaas aadan bedeli karin inaad isticmaasho waxaa la dhahayaa link meesha conversion aad ka isticmaalaysid inaad linka click inaad halkaa markaa sii socono waa labo shay bisa bedelnay. kow goolka waxaa ka dhignay message, labo WhatsApp ayaan dooranay, saddex waxaa imaanaynaa audience-gan marka audience abuuranaysaa kadibna waa save gareynaysaa. tusaale waxaa dhihi karnaa create new audience cusub sameey. audience-gaas waxaa dhahday besti ama magaca u baxsatay
waxaa dooratay gabdha bes wax ka iibinaysa gabdhaa dooratay rag keliya wax ka iibinaysa ragaa dooratay da'da waxaan ka dhigana kasoo qabo ilaa waxaa rabnaa 42 meelahay joogaan muqdisho keliya hadda dooran magaalo kale aad ku dari kartaa soomaaliya dooran kartaa wadamo kale ayaa dooran kartaa meeshan waxaa la dhahaa waa detail targeting waxyaabaha ay jecel yihiin tusaale hadda annaga online wax ku iibinaa online shopping aan dhahnay online shopping ayay jecel yihiin marka AI-ga wuxuu fahmaa maaragta dadka alaabta iibsiga u badan ayuu ku keeni doonaa halkan waxaan abuurnay audience oo ama maaragtay oo ah festival kaasaa dooranaya marka locationka waa muqdisho maaragtay waa labada male iyo female waxaa la dhahaa dadkana waa online shopping interest garanayaan kadib halkan marka imaano waa durationka meeqa maalin rabtaa waxaa rabnaa 10 maalin inoo socdo maalinkii meeqaa rabtaa maalinkii waxaa rabnaa $2 marka wuxuu kaa qaadan doonaa $20 ama $20 $20 marka mastercardkana wuu ku xiran yahay publish haddaa dhahno xayeysiintaas sidaas ayay ku furan tahay si aa u helna marka xayeysiinta waxaad soo degsanaysaa play storekaaga ama app storeka imaanaysaa waxaad ku qoraysaa ads manager oo kale haddaa dhahno hadda waa isla fiirinayna marka adisman oo kana soo degsanaysaa muhiimadda hadda waxaan rabay maadaama hadda maaragta computerka aan ka isticmaalayno meta ads manager ayaa waxaa ku qoraysaa app storeka ama play storekaaga applicationka loogadaas wata ayaa soo degsanaysaa dib waxaa ku xiraysaa facebookaaga ayaa si automatic ugu xirmi doonaa halkaana waxaad kala soconaysaa xayeysiimaha ka socdo hadda halkan markaad joogto waxaa ujeedaa active xayeysiimaha activeka ayaa kala socon kartaa ana ku dhufatida waxaa dhihi kartaa off waa iska istaajin kartaa waxaa dhihi kartaa maaragtay maalmaha ku dari kartaa waxaad ka managereyn kartaa marka xayeysiimaha socdo waxaad ka samayn kartaa lacag bixintoo kale macnaha lacagta marka la bixinayo kale inaad ka bixisid waxyaabo badan ayaad ka qaban kartaa marka waa kuu muhiim inaad soo degsatid meta ads manager mobilkaaga kusoo degso kadibna facebookkaaga ku xir kadibna waxaa la soconaysaa xayeysiimaha ku socdo kuwa activeka ah inta lacag ku baxday hadday lacag ku taagan tahay haddii aad xiraysid haddii aad furaysid shirkeenii 7aad ama muhiimadii koorsadeena maaragtay e-commerce alibaba course shirkan ayuu ku egyahay waxaan soo baranay bilow ilaa dhammaad koorsadeenii inaan alaab baarno alaabta fiican wax lagu garta calaamadaheeda alaab inaan dalbano magac aan doorano dibna aan sameyno maaragtay akoon aan social media ku samaysano sida tiktok iyo facebook design aan diyaarino muuqaalo aad diyaarsatid dibna aad samaysid xayeysiin taa marka waa midka simbalka ah oo fudud oo xayeysiinta fudud qaybtan kaleeto waxaa loo yaqaanaa waa ads manager xayeysiin oo waqti badan u baahan fahankeeda waaye qofkii u baahan si gooni ah in maaragtay uu barto koorsadaas ayuu qaadan karaa oo ah koorsada aan ugu talagalna social media marketing iyadana wax badan ayay ka anfici doontaa koorsadaas intaas ayuu ku egyahay cashirkeena la soco shirada xiga